toddobaadkii afraad ayay gashay duqeynta Mareykanku uu ku wado waddankaasi Yemen inkastoo khubarada dhanka militariga ay sheegayaan in aysan muuqan waxtar weyn oo duqeyntan ku aadan haddana waxaa sii kordhaya khasaaraha soo gaaraya dadka rayidka warbaahinta Xuutiyiinta ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay tibisay in Mareykanku duqeymadii xalay uu ka geystay waddankaasi Yemen ay sababeen khasaare macluumaadka ugu dambeeya waxaa ka mid ah in deegaanada duqeyntu ay ka dhacday ay ka mid tahay dhanka magaalada Sanca waxaana sidoo kale la sheegayaa degmada Al-Sabiin inay ka mid tahay goobaha duqeyntu ay ka dhacday sidoo kale aagaas gaar ahaan fagaaraha la yiraahdo Al-Sabiin iyo masaajidka weyn ee ku dhow ayaa ka mid ah meelaha lagu soo waramayo in inta badan dibadbaxyadu ay ka dhici jireen halkaasi oo jimco kasta banaanbaxyadu ay ka dhacaan laakiin waxa la leeyahay aagaasi ayaa duqeyntii ugu dambeysay ay ka dhacday docda kale jasiiradda Kamraan ee badda cas dhacdaha ayaa la sheegayaa in la duqeeyay waxaana soo baxaya warar kale oo tilmaamaya in tan ay la jaan qaadayso duqeymaha Mareykanka dhinaca kale Xuutiyiinta ayaa soo bandhigay muuqaalka diyaarad nooca MQ-9 oo ay soo rideen diyaaradaasi oo Mareykanku leeyahay kana mid ah diyaarada waxna duqeeya waxna basaasa war hadda soo dhacana waxa uu sheegayaa dadka duqeyntii ugu dambeysay ku dhintay tiradooda inay tahay 3 qof sida macluumaadkan haatan warbaahintu ay ku tabinayso haddaba iyadoo ay sii socdaan weerarada ay isku hayaan Mareykanka iyo Xuutiyiinta ayaa waxaa soo baxaya warar dhanka Ruushka laga helayo oo sheegaya suurtagalnimada in Mareykanku uu ciidamo dhulka ah u diro Yemen si ay ula dagaalamaan Xuutiyiinta warbixin arrimahan ku aadan waxaa soo jeedinaya Yaxya Ciise warbixin uu qoray wargeyska ka soo baxay dalka Ruushka ee Nasafisimiya ayaa waxa uu su'aal ku galiyay suurtagalnimada in Mareykanku uu qaado weerar ballaaran oo dhanka dhulka ah kaasi oo lagu qaadayo dalka Yemen kadib duqeymaha dhinaca cirka ah ee muddooyinkii la soo dhaafay uu ku bartilmaameedsaday goobaha ay maamulaan kooxda Xuutiyiinta qoraaga lagu magacaabo Igor Sabutin ayaa sheegay in wasaaradda difaaca ee Mareykanka ee loo yaqaano The Pentagon ay sare u qaaday cadaadiska militari ee ay saarayso kooxda Ansar Allah maalmihii ugu dambeeyay ciidamada Mareykanka ayaa 7 Abriil duqeymo ka fuliyay meelaha ku dhow caasimadda Sanca iyo deegaano kale oo Xuutiyiintu ay gacanta ku hayaan howlgalka militari ee ka dhanka Xuutiyiinta ayaa bilowday 15 Maarso amar ka soo baxay madaxweyne Donald Trump mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Trump ayaa sheegay in weerarada cusub ay ka waxyeelo badan yihiin kuwii hore u qaaday madaxweyne Joe Biden bilowgii sanadkii 2024 ee uu la furiyay Britain agaasimaha sirdoonka qaranka Mareykanka Tulsi Gabbard ayaa sheegtay in weeraradii la qaaday bartamihii Maarso lagu dilay hogaamiyaal sarsare oo ka tirsan Xuutiyiinta isla markaana lagu burburiyay xarumo badan oo lagu sameyn jiray hubka casriga ah inkastoo Xuutiyiintu aysan qiran warkaasi isla markaana Tulsi aysan soo bandhigin cadeymo rasmi ah oo ay ku soo xoojinayso sheegashadeeda si kastaba ha ahaatee wargeyska New York Times ayaa sheegay in guulaha la gaaray ay yihiin kuwo aan badnayn iyadoo la tilmaamay in Xuutiyiintu wali ay haystaan madaxyada gantaalaha iyo diyaaradaha droonka ah kuwaas oo wali ay weeraro ku qaadayaan warbixin kale ayaa sheegaysa in Pentagonku uu ku bixiyay ilaa 200 milyan duqeymihii ugu dambeeyay iyadoo khubaro badan ay ka walaacsan yihiin in ciidamada badda Mareykanka uu ka dhamaado kaydka hubka kadib howlgaladan tan iyo dhamaadkii sanadkii hore Xuutiyiintu waxa ay ku eedeeyeen Mareykanka in uu wado qorshe toos ah oo uu ku weerarayo magaalooyinka xeebaha ee Yemen iyaga oo ka cabsi qaba in laga qabsado dekedda muhiimka ah ee Xudayda wasiirka arrimaha dibadda Xuutiyiinta Jamaal Amir ayaa sheegay in weerarada lagu qaadayo Xudayda ay yihiin mid ka mid ah yoolalka Mareykanka si loo cadaadiyo Yemen inay joojiso taageerada ay u hayso Gaza warbaahinta ayaa sanadkii hore waxa ay hadalhaysay weeraro ka dhan ah Xuutiyiinta oo Mareykanka uu ku qaado dalka Yemen iyadoo sidoo kale hadda la hadalhayo weeraro dhanka dhulka ah oo ka dhan ah kooxda Xuutiyiinta oo Mareykanka uu ku qaado dalkaas Yemen taasi oo hadda u muuqata mid hadalhaynteedu ay soo tarayso ilo diblomaasiyadeed oo bariga dhexe ah ayaa sheegaya in maamulka Trump uu ogolaaday duulaan dhuleed oo ka dhan ah Xuutiyiinta lagana bilaabi karo koonfurta iyo bartamaha Yemen iyada oo taageero laga helayo ciidamada badda Sacuudiga si loo qabsado dekedda Xudayda hase yeeshee CNN ayaa sheegay in Mareykanku uusan u baahnayn inuu ciidamo dhulka ah geeyo Yemen balse uu sii wadi karo weerarada cirka ah isagoo adeegsanaya ciidamada qaaska ah ee dalkaasi ku sugan tan iyo 10 sano ee la soo dhaafay si loola dagaalamo Al-Qaacida caqabadaha waaweyn ee ku xeeran weerarka ka dhanka ah Xuutiyiinta ayaa ah inay leeyihiin shabakado godad ah oo dhulka hoostiisa ah oo la sameeyay xilligii madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalax si loogu kaydiyo hubka iyo in ay ku badbaadaan madaxda sare Qarasimov waxa uu sheegay
in weerar kasta oo lagu qaado kooxda xuutiyiinta ay fariin cad u tahay Iiraan maadaama xuutiyiintu ay yihiin saaxiibka dhow ee Iiraan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa doonaya inuu Iiraan ku cadaadiyo in isbedel lagu sameeyo nidaamkeeda taas oo horey ay u soo jeediyeen mas'uuliyiinta sarsare ee Mareykanka. Yahay Ciise, HBO Online TV.